الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد waxaan soo wadnay kitaabkeen islaaxul mujtamac aan soo wadnay waxaan soo gaarnay cashirkeena 14aad aan soo gaarnay alxadiith السادس والستون xadiithkeena 66 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال wuxuu dhahay saxaabigan سمعت waxaa maqlay رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi yaquul asagoo dhahay kullukum dhammaantiina raacin ilaaliyo ayaa tihiin, waxbaa loo dirsaday, waxbaa loo dhiibtay, waxbaa ilaali ay ka yihiin. wa kullukum dhammaantiinana mas'uulun waa kuwa la weydiinayo can raciyatihi wixii loo wakiishay oo ilaali looga dhigayna ayaa la weydiin doonaa maalinka aakhiro. al-imaamu imaamka raacin waa ilaaliyo, wa mas'uulun waa mid la weydiin doona can raciyatihi wixii ilaali looga dhigayna waa la weydiin doonaa maalinka aakhiro. warajulu ninkana raacin waa ilaaliyo, waxbuu ilaaliyaa, waxbuu mas'uul ka yahay, waxbaa loo dhiibtay. warajulu ninkana raacin waa ilaaliyo fi ahlihi ehelkiisa, wa huwa asigana mas'uulun waa mid la weydiin doona can raciyatihi wixii loo dhiibtay oo ilaali looga dhigtay. ilaahi subxaanahu wa tacaala maalinka aakhiro wuu weydiinayaa. walmar'atu haweeneydina raaciyatun waa ilaaliye, ayadana waxay ilaali ka tahay fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ay ilaali ka tahay, ay mas'uul ka tahay. wa mas'uulatun waa mid la weydiin doona can raciyatiha wixii loo dhiibtay ilaali looga dhigayna aydan maalinka aakhir waa la weydiinayaa. walkhaadimu ninka shaqaalaha ahna raacin waa mid ilaali ah fii maali sayidihi sayidkiisa xoolihiisa ayuu ilaali u ka yahay. wa mas'uulun waa mid la weydiinaya can raciyatihi wixii ilaali looga dhigayna maalinka aakhir waa la weydiinaya. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu weydiinayaa. warajulu ninkana raacin ilaali ayuu ka yahay, waa ilaaliya fii maali abiihi aabihiisa xoolihiisa. adiga aabbahaada xoolaha uu kuu dhiibtay ilaali ayaad ka tahay, waa lagu mas'uul ka tahay, waa lagu dhiibtay inaa ilaalisin waa laga doonaya. wa mas'uulun waa mid la weydiin doona can raciyatihi wixii ilaali looga dhigo oo loo dhiibtay waa la weydiinaa maalinka aakhir. wa kullukum dhammaantiinin raacin ilaali ayaa tihiin iyo la jira waxbaad la jirtan oo laydin dhiibtay ama qowsaar aad ka tihiin. wa mas'uulun waa la weydiin doonaa dhammaantiin mid walbana can raciyatihi wixii ilaali looga dhigayna waa la weydiin doonaa maalinka aakhir. rawaahu al-Bukhari Muslim. xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay in badan ayaan soo qaadanay, dhammaantiin mas-uuliin aad tihiin. qof walban ilaahi subxaanahu wa tacaala waxbuu u dhiibtay, waxbuu mas'uul ka yahay. imaamka ama madaxweynaha shacabka ayuu mas'uul ka yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka aakhir uu weydiin doonaa muxuu u sameeyey, muxuu u qabtay, muxuu dantooda ka shaqeeyay. maalinka aakhir waa la weydiinayaa. qofka maxaa la jiray ninkana wuxuu mas'uul ka yahay reerkiisa, caruurtiisa, xaasaskiisa, qaraabadiisa, waxay dhan maalinka aakhir waa la weydiinayaa. gabadha ama qofta dumarka ahna aydan waxay mas'uul ka tahay reerka ninkeeda, ninka gurigiisa maalinka aakhir maxay u qabatay, maxay u ilaalisay, maxay u xifdisay, maalinka aakhir waa la weydiinaa ayadana. sidoo kale qofka khaadimka shaqaalahana oo waxaa la weydiinaa asina wuxuu shaqaale ka yahay sayidkiisa ama qofkuu u shaqeeyo xoolihiisa. yani qofba adig kuu shaqeeyo, markuu kuu shaqeynaya waxbaad u dhiibatay, xoolahaasaad u dhiibatay ama shaqadaasaad u dhiibatay, waa ilaali aad ugu dhigtay, ee ilaali ee xifda si faan igu gud aad tiri. maalinka aakhir waa la weydiinayaa. sidoo kale qofka ragga ahna xoolaha asiga uu ku shaqeynaya aabihiisa iska leeyahay, maalinka aakhir waa la weydiinayaa. aabbahaada xoolo kuu dhiibtay, wiilkii noogu shaqeey ayuu ku dhahay, ilaali ayuu ku dhahay, xifd ayuu ku dhahay, maalinka aakhir waa lagu weydiinayaa. dhammaanteenana ilaali ayaan nahay, maalinka aakhir waanana weydiinaya. qof walba waxaa la doonayaa inuu wixii loo dhiibtay inuu ilaaliyo amaanada. الحديث السابع والستون حديث كان لحدين التضوات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله وحوده يا معشر الشباب لنا يرد كلهم كذا من استطاع قفكي أبوذا الباءة جورك فليتزوج هجورسده قفكي جورك أبوذا هجورسده
فإنه محايل يقول كيا أغض لابد بدن للبصر أرج يكون لا يكون إلى علنايا وأحسن أسجى دوريد بدن للفرج حبن كترن كان وكو دوريا وكو حفظنايا ومن لم يستطع قف كان أبودن فعليه وحدش يسعد بالصوم الصوم حصوم فإنه صومك له حقويها وجاء رفان شهودي iyo wixii ay ka dijina oo ka yareena dhufan ay ku noqonay rawaha Bukhari Muslim xadiidka marar badan ayaan soo marnay nabigu wuxuu leeyahay dhalinyaro guursada guurka idin fiican oo arag ayuu ku laabaa markaad guursatay dumarka ma fiirfiirinayso sidoo kale xubinka tarankan uu ku ilaaliyaa zina iyo macaasi xumaan kuma dhacayso qofkan awoodina xal soomo soonka shahwada uu ka khafiifanaya الحديث الثامن والستون حديث كان لحد من سديدات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام تنكح والجور سنايا المرأة حوينيد لأربعين أفر أي لوجور أفر سببات لمالها حول هذا إن حول أي لا تجرد أي تهاي ولحسبها أيوه النصب كذا أما شرفت إن أي تهاي جور شرف بدن أما أي كذا لتي قوس أما دad sharaf badan inay ka dhalatay wali jamaliha iyo quruxdeed inay tahay qof qurux badan wali diinha iyo diinkeeda inay tahay gabar oo diin wanaagsan akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan diinkeedu uu wanaagsan yahay nabiga intaas kadib wuxuu dhahay fadfar dooro oo ku dadaal bidaati diini mid diinka u saaxiibka ah taribat biyadaka labada gacmood ha caruwaan oo yani carada dhulka gacmaha ha galaan way ha buruwaan روى البخاري مسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحنا شيء قفت الدمر كأمرك دمر تمرك اللي جورسنا أفر السبب اللي جورسدا إن حول أي لذا هاي إن أي كرالتي ضد شرف بدن أيضا شرف أي لذا هاي أما إن أي قروح بدن هاي أما إن الدين أي لذا هاي نبي وحوليه مد الدين كله كد ذال قعنت هذا حبورو ذي أو إيده حق شيء وايو أنت كروي ضمانة لكن دينك رب سبحانه وتعالى ما بعضه حاليا وقفت الدين مركي ليدا حقوق ذا الحق هذا وناقة إن يكون إلى لسه حمانتي وحي كا إلى لسه لكن قرح ذا ويدمانيسا حولها أي ليدا هين وكبا بيكرا بريبو حولها ويبيحي كران نصب الشرف قوس كي كدالتين وهم بنا آدنه بريبو حاكو لإكرا لكن دين رب سبحانه وتعالى قفك وراس مال دوه هيستو قفك سدوروي الحديث التاسع والستون حديث كان لحد السجالات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وهو أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحوله استوصوا ورسوا دردارما بالنساء دمرك خيرا خير أسوا دردارما دمرك خير دردارما أو وناك دردارما فإن المرأة محايلة حبين إذا خلقت حلقة عوري من ضلع يعني فير أي لقى عوري taasoo hadan acwaja qaloocan fiir qaloocan ayaa laga abuuray wa inna acwaja shay'in ugu qaloocsan fi dilaci xagga maxalli jiray fiirahan waa mid ugu sareyso in dhahabta hadaad doontid oo aad tagtid tuqiimuhu inaad toosisid kasartahu waajibinaysa hadii aad damacdid inaad toosisid oo jibinaysa mooye fiirtaasi kuma toosayso وإن تركته هذا كتكتن لم يزل كما زوليس أعوجا إني قلوا أنتهاي كما زوليس إني قلوا أصلا سيدهم بأحانيسا استوصوا إسو دردارما بالنساء دمرك خيرا خير دمرك إنات خير ودردارنتين رجو إذيك إسو دردارم وي قفل بن رجع كأنه دردارمو إن دمرك وناك لو السماهية رواه البخاري مسلم مركا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان حوليه هاي استوصوا وإسو دردارما بالنساء دمرك خيرا خير dumarka inaad khayr u sheegtaan wanaag aad u sameysaan rawo isu dardaarma oo dumarka yaa la dulminin xaqooda yaa la qaadinin yaa lagu tacadinin yaa lagu xadgudbin war mar walba midka ka dambeeya wanaag isu dardaarma yani dumarka yani inta badan waxaa maamulo ragga ayaa maamulo hadday hooyo tahay hadday gabar tahay hadday naag la furo tahay hadday gabar yar tahay wax dhan ragga maamulo markii raggii wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaxdeen isu dardaarma inaad dumarka wanaag u sameeysan dumarka yaa la dulmin way intaas kadibna wuxuu dhahay fa inal mar'ata khuliqat min dil'in yani haweeneydu waxa laga abuuray fiir ayaa laga abuuray fiirtaas oo waja qaloocan yani waxa laga wadaa asalkeeda gabadha
nabi aadam alayhi salaatu wasalaam markii la abuuray xaawo markii la abuuray waxa laga abuuray nabi aadam feertiisa laga abuuray ilmada sareysa ayaa laga abuuray taasna way qaloocan tahay nabigu wuxuu leeyahay wa inna a'waja shay'in fi dhila yani maxaa jira feerta ama feeraha mid ugu qoloocsan ama shayga ugu qolooc badan feeraha mid ugu sareyso tan ugu sareysa ugu qolooc badan ayda yani qoloocsan taasana laga abuuray dumarka marka hadii aad isku daydo inaad toosisidna waajibanaysa maxaa laga wadaa waxa laga wadaa dumarka in wanaag loo dardaarmo khair loo dardaarmo mar walbana kuma toosanaanayso qofta dumarka aad guursatay mar walbana inay toosanaato oo wanaag uu ku hayso ama xal jir hal meel ma soconaysa yani marba waxa laga yaabaa isku dhacdaan marba waxa laga yaabaa waxa dhibsinaysa inay kugu sameeyso marba waxa laga yaabaa inay iska xanaaqdo waxa la doonayaa inaad sasabatid laakiin hadii aad isleedahay yani waan toosinaya ayada waxa laga abuuray feer qaloocan ayaa laga abuuray marna ma ku toosaysa sida yani abuurkeedaba qaloocsan yani sideeda dabeecad u leedahay marka nabigu wuxuu leeyahay hadii in dhahabta tuqimuhu hada isku dayday feertas inaad toosisidna kasarta waajibinaysa bimaana qoftan dumarka hada rabtid boqolkiiba boqol inay ku noqdo ku toosanaato ma toosin kartid jibinteedu waa furiinka waa furaysa mooye yani inay wada toos xal kuga ahaato ma soconayso hadii marka wanaag aad rabtid sida ku qaad iskaga dulqaado oo wanaag u sameey way nabigu wuxuu leeyahay in taragtahu hadaad ka tagtay lam yazal a'waj yani kama zuulaayo ama maxaa la jiray feertas kama zuulayso inay qaloocsanato sidaas ku wadanaysa nabigu wuxuu leeyahay markasta uu soo binisaa khayran marka xadiidka nabigu wuxuu ku wadaa dumarka feer qaloocan ayaa laga abuuray oo wixii xumaan iyo kii aad ku aragtaan u dulqaato oo sidooda ku wada laakiin hadaad tiraahdo waan toosinaya waxay la mid tahay adigoo feertaas qaloocan aad tiri waan toosinaya feerta hadaad toosinayso waa jibinaysaa dumarka hadaad isku day inaad toosisidna waa furitaan mooye kuma toosayaan laakiin sida hadaad ugu tagtaan sida aad ku wadataana saasaad ugu raaxaysanaysaan way tan laga hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlayna waa waxyaalaha mubaaxaadka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala banoo baneeyay tusaale ahaan yani adiga xuquuqa leedahay waxbaad leedahay yani qofkan bini aadam waxbuu ka haleyn karaa khalad buu ka gali karaa waxbuu ka sameyn karaa adigoo ka sameynaya adiga inaad u dulqaata la doonaya oo wanaag iyo maxaa la jiro waxyaalo badan ayuu qofkan kuu sameynaa qoftan dumarka ay kuu sameynaysayo inaad u dulqaado laakiin shay walba sidiisan ku rabaa ma soconayso ama waxyaalaha aan loo dulqaadin waxa kamid ah xumaanta macaasida ilaahay subxaanahu wa tacaala laga galo gabadhan salaad ma tukanayso ma soomayso ilaahay kama cabsanayso xumaanta ku dadka caada aflagaada deriska kama nabad galaan taas looguma raacal noqon taas baa la idbinaya waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa uu amray taas lagama hadlaayo taas qofna loogama tagaayo yani gabadhan salaad ma tukanayso salaadiisan tukanayn iska daa feer qaloocan laga abuuray salaada laguma kare maya ma soomaysa waa in lagu adbiya inay soonto salaado ilaahay ka cabsado diinka rabbi subxaanahu wa tacaala gorgorta ma garo tan laga hadlay nabi uu leeyahay yani waa waxyaalaha ayadii iyo ninkeeda u dhaxeeyo ama ayadii aabaheed ama ayadii walaalkeed haday ka haleys u dulqaaday way waxyaalo waxa laga yaabaa yar inay ka haleyso adiga laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa xumaan iyo macaasi aysan ahayn oo adiga ka taleefanka ka haleysay sacaday ka haleysay wixii aad siisay ka lumisay guru waxyaalo qaar cuntadii laga haleeyay sifan laguma sameyn yani waxyaalo qaar inaad u dulqaatid way الحديث السبعون حديث كان تضواتنات وعنه على ورنا أبو هريرة قال وحور أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحوره إذا دعا هدوء يرت الرجل منك امرأته هبيني ديس إلى فراشه سريرت هدوء يرته قفك رجع هدوء حاسك سوء يرته إلى فراشه سريرت ديس يعني إنه أما الجماعة لسمينا أما الدم يحاجوك كليحي فأبت مركز أيديده فأبد مركز أيديدو أن تجيء إني أتماضو أي أكاليسو أو فبات أوسحدو غضبان أسوء عريسا حناقسا لعنتها وحا لعنذيسو حويني ذا الملائكة ملائكة حتى تصبح إلى كوابريسة إلا بابو أبريو ولعنت يقص رواه البخاري مسلم حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام حليه حي إذا دعا الرجل يعني قفك هدو يجيرتو
xaaskiisa sariirta ay ugu yeertay kaala ayuu leeyahay baahi u baahan yahay waxbuu rabaa inuu xaaji guto inuu jimaac la sameeyo ayuu rabaa xaaskiisa inuu danihiisa yani waxyaalaha khaaska inuu la guto haddii u diido inay u timaado ilaa markaas uu seexdo asagoo xanaaqsan iska seexdo nabigu wuxuu leeyahay malaa'igta ayaa lacnadayso habeenaydaas ilaa uu ka waabiris lacnad ayaa ku dhacayso waana dembi kabiir aad u weyn wey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaa uu ka waabiristo waxaa dhici karto mararka qaar inay maalin cadii ay tahay uusan seexanba subaxii ayuu ka doontay way u diiday ninkii maba seexan asoo xanaaqsan oo guriga ayuu ka baxay ama asoo xanaaqsan oo danihiisa ka qabsay asagoo seexanba waa la mid way habeenii ma inta badan habeena waxyaalaha la gutaa oo yani dana qofka xaaskiisa inta badan habeen ayuu waxyaalaha ay sameeyaan khaaska ah ama jimaac habeen ay sameeyaan inta badan waa habeenkii way maalinka haddii u diidin waa la mid malaa'igta way lacnadaysaa ilaa uu ka raali noqdo oo wixii uu rabay inay u sameyso markaas way laakiin inta uu xanaaqsan yahay lacnad ayaa ku socota ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato casharkeen meesha ku egyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu